iyadoo maalinimadii shalay si diiran loogu soo dhaweeyay magaalada Hargeysa wafdidan uu hogaaminayo wasiirka arrimaha dibadda ee dalka Eritrea Mudane Cismaan Saalax ayaa waxa isaakana kulan la qaateen labada gole ee baarlamaanka Somaliland ee wakiilada iyo guurtida kulamadan oo ay warbaahintu dabadjoog ka ahayd ayaa markii uu soo dhamaaday kulankani waxaana xorka kulamadan ka warbixiyay gudoomiyaha golaha guurtida Somaliland Salebaan Nuur iyo waliba gudoomiyaha golaha wakiilada Mudane Baashe Maxamed Faarax إلى خير كذب إلى خير كذب الوحي يومي بدروي بالحالة دي نبي دلي نحن نقبض الرب بركاس نقبض الرب بركان حقوقال نقبضه وورفعا إن شاء الله ويكقدر بين دورة أنا وررني دولتنا وررتها الوحي بكل رجوين markay daqiiqiyaan caloosha u sii daayaan inay markaa wixii ka soo baxaa wixii nafaan noqdo waxaan isla qaadanay wixii madaxweynuhu lagu hogaamiyay sida aad maqasheen waxay yiraahdeen waxa la soo diray madaxweynaha Eritrea waxaan u nimay inaan ogaano xaalka Soomaaliya sida wax ka bartaan oo yimaadaan in la hadlaan ogaadaan mowqifka ay taaganahay قراءة وكلها قراءة أبد عصيدة وجهها قراءة واحد قوة على اللي واحد وسود ويب هاي واحد يقول إنه هذا قراءة إنه واحد ضل هاي دور شوي كلاي اسم البدلة هاد بقف في ماده هاد بقف لو waxaan ka wada hadalnay waxa weeye dhibaatooyinka ay soo baxay sida gudoomiyaha uu sheegay dhibaatooyin bay soo wada maray iyagu se waa kala baxeen Itoobiya way kala Eritrea ilaahay waa kala baxeen laba dawladood bay noqdeen waxaan ku heshiiyay laba Eritrea iyo Itoobiya si wanaagsan walaalnimo ay u kala baxeen khibradda ay leeyihiin waxay soo wada maray dagaal inaguna aynu Soomaaliya la dagaalanay iyaguna Itoobiya la dagaalameen haddana markii ay xoroobeen iyagu ay kala baxeen inagu se wali aynu iska laablaadno khibradda way leeyihiin waxaan ka codsanay inay nagala shaqeeyaan sidii aynu uga walaalaheen u kala bixi lahayn laba dawladood oo walaalaa oo darisa oo iscaawiyo oo wax iska aan noqono geeska Afrikana كم بيننا إثبات كتير واحد ويا قريب بين كلنا هذين قريب تاني كسرين لا كسرنا واحدة متجرة si kastaba ahaatee soo dhaweynta wafdidan ayaa si ballaaran looga dareemayaa gudaha caasimadda Somaliland ee Hargeysa taasoo habeennimadii xalay nacasho sharaf lagu sameeyay xarunta qasriga madaxtooyada Somaliland waa Maxamed Cabdi Cabdilaahi Maxamed Andar CNA TV magaalada Hargeysa.